بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. dhammaan guddiga sharafta leh ee fiit iyo guddiyada kaleeto oo doorashooyinka ka soo qayb galay marti sharafta faraha badan ee hoolkan soo buuxisay saxaafadda iyaduna aad u badan oo iyana ka soo qayb gashay doorashadan dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. salaan kadib waxaan halkan ka akhriyayaa wax yar oo aan doonayo inaan idinku brief garayo. magacayga waxaa la yidhaahdaa Muuse Geele Yuusuf. waxaan ku dhashay magaalada Boosaaso. waxaan wax ku bartay dalka gudihiisa, dibad ma aadin. shaqooyinkaan soo qabtay waxaa ka mid ah wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliya dhowr iyo 80kii. waxaan ka soo shaqeeyey wakaalad la yidhaahdo wakaaladda xabkaha iyo faleenka ee Soomaaliya. waxaan ka soo shaqeeyey maayar ka noqday magaalada Boosaaso. waxaan sidoo kale guddoomiye gobol ka soo noqday gobolka Bari. waxaan ka soo shaqeeyey wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga agaasimo guud. waxaan ka soo shaqeeyey wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda agaasimo guud. waxaan noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga. waxaan dalka ka asaasay shirkado kalluumaysi iyo barafdhaliyaal casri ah oo iminka dalka ka shaqeeya. waxaan ka mid ahay xubin ka mid ah guddiga fiit ee hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya. waxaan jeclahay in aan hirgeliyo doorasho hufan oo hanaankeedu saxan yahay oo cadaalad iyo daahfurnaan ku dheerahan insha Allah, iyadoo aan ka duulayno heshiisyadii madasha qaran ee ka bilaabmayay 17kii Sebtembar 2020 ilaa iyo Agost 2021. heshiisyadaas oo ay madasha qaran dhammaantood ku soo saareen habraaca iyo waqtiyada doorashooyinka la qaban karo oo lagu joojiyo. waxaan insha Allah jeclahay inaan sameeyo isku xir guud oo guddiyada dhexdooda ah, sida guddiga hirgelinta heer federaal, guddiga fiit ee siid oo heer dowlad goboleed, iyo guddiga xalinta khilaafaadka, dhammaan inay si wadajir ah u shaqeeyaan iyaga oo isku xiran oo shaqada doorashada hal meel uga soo wada jeeda. waxaan guddiga insha Allah dhexdiisa ku maamuli doonaa wadatashi, cadaalad iyo in guddigu yahay guddi siman oo aan wax khilaafaadii dhexdooda ku jirin, si ay u hirgeliyaan doorashada waqtigeedu gaaban yahay oo 45 cisho aad la socotaan, oo u baahan in la dardargeliyo oo dad si toos ah loo abbaaro si wadajir ah. waxaan guddiga sharafta leh ka codsanayaa in ay codkooda igu sharfaan oo siiyaan si aan u gaarsiino dalka doorasho lagu asaaso dawlad
cusub maadaamay doorashadu muddo soo jiitamaysay waxyaabo badan ay ku daharaayeen caqabado badan soo martay maanta waxaan u guntanaynaa insha allahu guddigayagan inaannu doorashada dardar gelinno doorasho hufan oo hannaan wanaagsan oo daah furan inaannu qabanno insha allahu oo waqtigii madasha qaran ay soo saartay aan ku soo gabagabayno si dalku uga baxo buuqa iyo iska qabsiga iyo dowlad la'aanta intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu